على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan halkan jecelahay inaan hambalyo u diro madaxweynaha cusub iyo madaxweyne ku-xigeenka mudane Muuse Biixi Cabdi iyo Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil. waxaan leeyahay hambalyo. hambalyada waxa kale raacinaya bulshooyinka Soomaaliland ee u codeeyay saddexda xusbi iyo saddexdii murashax ee u tartamayay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dhammaantood aad iyo aad baan ugu hambalyeynaya sida sharafta leh ee nidaam kale ay markii la kala guuleystay la isugu haneeyay iyo sidii nadiifta ahayd ee xamaasadana lahayd ee haddana aanay magaranaysaa riirdiin aynu u galay doorashada ee soo jeeditay ishii caalamka. waxaa kor u kacay qiimaha aynu lahayn waxaana aad la isu weydiinayaa dalkan yar ee ictiraafka lahayn ee haddana olole intaa lagintu ka soo baxay haddana markii dambe ay si hawl yar markii commissionku inoogu dhawaaqay ay si hawl yar dhammaantood isu talaasileen waa wax weyn weeye wax aad iyo aad u weyn weeye. waxay taasi la tusaysaa inaynu nahay bulsho bisil oo dimuqraadiyadda yaqaana oo ka ilbaxsan dadka asaagooda maanta la fursad ay ku doortaan madaxdooda ee dagaalada badani ka socdaan iyo kuwa marka ay doortaan isqabsada ee dagaalku ka dambeeyo. waxayna tusaysaa inaynu soo galnay saddex doorasho oo mid 80 cod laga helay oo markii dambe kii 80 laga helay uu ku guuleystay oo mar saddexaadkii marka aynu marayno waxa weeye waa wax aad iyo aad u qiimo badan saddex doorasho oo madaxweyne oo hawl yar bayna soo maray taasoo dhammaanteed ina tusaysa ummadaynu nahay. waxaan markaa ummadda u soo jeedinayaa sidaa sharafta leh wanaagsan aynu rag iyo dumar dhammaan aynu isla qaadanay inaynu halkaa ka wadno. madaxweynuhuna waa madaxweyne qaran oo kii doortay iyo kii aan dooran daafaha geesaha Soomaaliland dhammaantood u madaxweyne ah. wuxuu u baahan yahay in la isbarbar taago. waxaas kale u baahan yahay mucaaradad nadiif ah oo tusa meelaha uu ka qaldan yahay. mucaaradadu waa dawo weeye oo haddaan mucaarad jirin qaladkaaga aan cid qaban waa iska qardajeexaysaa. marka waxaan leeyahay mucaaradad wanaagsan oo qaladka xukuumadana tusta ayaa loo baahan yahay inaynu markaas ku wada socdo dadkuna ixtiraamaan fikirka ninka mucaaradka uu leeyahay waa in la ixtiraamaa inuu fikir ka duwan leeyahay. waa dhammaantood waxay doonayaan dalka inay dhisaan laakiin nin waliba hab gooniya uu soo jeediyay inna ma lahayn waxaan duminaya iyo waxaan khariibaya. nin waliba program buu watay wax ku dhisayo wax ku hagaajinayo dadka way kala doorteen nin bay doortay inay way u haneeyeen laakiin mucaaradku ma aha ceeb ma aha mucaaradku cayna ma aha waa wax wanaagsan oo loo baahan yahay. saasaynu insha Allah ta'ala ku guuleysan doonaa dhammaan shacabka Soomaaliland waxa leeyahay hambalyo leeyahay. wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.